بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وديال ميل walba joogtaan ku soo dhawaada casharadii taxanaha ee barnaamijka Quick Book oo toddobaad walba maalinta Isniinta oo ay Isniintu baxayso habeenka Talaadada soo galayso aad kala socon jirteen bogga YouTube-ka ee aan idinku soo gudbinaa casharada iyo aad Facebook ay baraha dadku wada xiriiraan casharkeena maanta intaan u guda galin casharkan waa casharkii saddexaad intayna u guda galin waxa waajib nuga inaan sheegno outline-ka maanta casharka aan magaranaysaa aan bixinayno sidoo kale waxaan rabaa in maanta aan halkan ka sheego dadkii ka soo jawaabay su'aalihii toddobaadkii hore aan weydiinay sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan maanta ka sharaxo waxa loo yaqaan bookkeeping-ka introduction of bookkeeping inta aan casharkayga hore gudaha u galin ugu horreyn qofka xisaabiyaha saan soo sheegnay oo company-ga xisaabiyaha soo ah maadaama uu yahay meesha ugu muhiimsan pointiga ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inuu company-ga u xisaabiyo waxaan nira asagu waa meesha xubinta ugu dhaqdhaqaaqa badan ee company-ga la soconaya marka tusaale ahaan qofka company-ga xisaabiyaha ka ah waa inuu yaqaanaa accounting language wax loo yaqaan accounting language ka ma aha inuu qofka accounting yaqaan khasab ma aha inuu accounting qofku yaqaan laakiin accounting language waa inuu yaqaano oo ay dadka xisaabiyaasha waxa ay ku wada hadlaan waa inuu yaqaan tusaale ahaan aniga xisaabiya haddii aan ahay maanta aan ku imaado waa in haddaan ku dhaho balance sheet-ka company-ga tus balance sheet maxaad ka wadaa inaad dhahdid ma waa inaan hore iga soo saari kadib balance sheet marka introduction of bookkeeping ayaan dhigan doonaa maanta bookkeeping horta marka la leeyahay waa maxay bookkeeping ka horta ugu yaraan qiyaastii 500 oo sano ka hor ayaa la dejiyay maadada loo yaqaan bookkeeping waa maadada dhan oo lagu dhigto jaamacadaha haddii aan bookkeeping qaabku u shaqeeyo ku soo waa sida aad u aqoonaysid shaqada aad qabanaysid marka xisaabiyaha tahay ayaad ka ogaanaysaa iyo akoomada si saameynta uu kala yeelanayaan tusaale ahaan akoomada Quick Book ku shaqeeyo waxa uu waaweyn 5 akoon akoonka asset-ka sida hantida maguurtada ah akoonka liability-ga oo kan deynta ah akoonka equity-ga oo capital sida dadka qaarka ay u yaqaanaan akoonka revenue-ga oo income-ka lacagta soo gasha iyo akoon loo yaqaan expense oo ah lacagta kharashka adiga ka baxda marka akoomadu waxay u kala qayb asset-ka waan soo sheegnay asset-ku saddex ayuu u kala baxaa current asset ayuu u kala baxaa oo lacagtii current asset-ka ahayd oo magaranaysa aad gacanta ku haysatay fixed asset lacagta hanti maguurtadii iyo waxa loo yaqaan intangible asset oo ay kamid yihiin magacii company-gu lahaa iyo sumcaddii uu lahaayo waa intangible asset uu leeyahay company-gu weyn waxa jira wax loo yaqaan liability ayaa jira liability-gu laba ayuu u kala baxaa akoonka labaad weeye akoonka liability-gu laba u kala baxaa meel ku qoro wuxuu u kala baxaa short time liability iyo long time liability waa short time waa liability-ga lagu keeni karo 1 sano long time-na waa 1 sano iyo wixii ka sii badan soo ahaan 5 sano oo kale waxa jira akoon kale oo la yiraahdo equity waxa gala dadka hantiilayaasha oo meesha ku qoran waxa kale oo gala alaabta hantida ah ee uu leeyahay maxaa la yiraahdaa company-gu leeyahay waxa jira akoon la yiraahdo revenue asagana revenue waa wax walba oo soo gala sida markii lacag laga gato lacagta soo gashay waa income ayaa la yaqaanaa ama revenues u taqaan waxa jira akoon expense la yiraahdo akoonka expense-ga waxa gala wax allaaliyo wixii baxa oo ka baxa company-ga lacagtiisa haday noqoto lacag xamaali ah ku bixisay haday noqoto kire lacag ku bixisay haday noqoto mushaaraad shaqaale lacag ku bixisay anyway ayaa jira oo lagu bixiyo maxaa la yiraahdaa mushaaraadkii ila soo marka akoon walba marka aad lacag ku xariinaysid wuxuu leeyahay qayb midig iyo qayb bidix waxa loo yaqaanaa waa debit iyo credit macnaheedu waxa weeye midig iyo bidix yani iska gelina ma lacagta qofku inuu debitkii credit-ka markuu tago inuu horey ka geliyo maahan tusaale ahaan debitka oo kale sidii company walba akoon walba uu uga increase garoobo iyo sidoo uga decrease garoobo akoon maanta waxaan gatay tusaale ahaan gaariga asset buu galayaa asset hadduu noo galayaa akoonkii asset ahaa meeshuu ka increase garoobayo waa inaan naqaanaa meeshuu ka decrease garoobayana waa inaan naqaanaa maanta tusaale ahaan
haddii aan maanta ku imaado faarax oo kale faaraxo haddaan ku dhaho maanta faaraxow waxaan soo gaday maanta gaari ayaan soo gadaa gaari baan soo gaday gaariga kambaniga iskale kambaniga inuu ku shaqeeyo ku wareego gaari uu talagalay gaariga diiwaangeli ku diiwaangeli gaariga waa soo diiwaangelinaysaa asad ayaad ka dhigaysaa lacagtii gaariga akoonka badanayayna waxaad ka inkiri garanaysaa dhibka marka meel ku qoro xog muhiim ayaan ku siinayaa meel ku qoro akoonka asadka la yiraahdo wuxuu ka inkiriis garoobaa marka aan ku leeyahay inkiriis garoob oo ka bataa ayaan ka wadaa wuxuu ka bataa akoonka asadku wuxuu ka bataa dhanka dhibitka wuxuuna ka yaraadaa dhanka creditka meel ku qoro waxaan ku yiraahdaa akoonka asadku wuxuu ka bataa dhanka dhibitka wuxuuna ka yaraadaa dhanka creditka okay akoonka la yaala bilatugu wuxuu ka bataa creditka dhanka credit ee midig ayuu ka bataa wuxuuna ka yaraadaa dhanka bidix ee ah dhibitka waa akoonka la yaala bilatugu wuxuu ka yaraadaa ama uu ka decrease garoobaa dhanka dhibitka wuxuuna ka bataa dhanka creditka haddaan ku dhaho deyn iyo xaree deyntii ay badatay qaybta ku qoraysaa qaybta creditka ku qoraysaa automatically saga dhibitka isku keenaya akoonka equity la yiraahdo asagana qoro akoonka equity la yiraahdo wuxuu ka bataa oo ka siyaada haddaan ku dhaho antiman soo xareystay ii qor hantidaas increase wuxuu ka increase garoobaa qaybta midig ee loo yaqaan creditka sidoo kale wuxuu ka yaraadaa qaybta loo yaqaan debitka meel ku qoro equity wuxuu ka bataa oo ka increase garoobaa creditka waxaanu ka yaraadaa debitka okay akoonka loo yaqaan revenue-ga ama income-ka waa sidii kan oo kale kama sharci dugna wuxuu ka bataa waa creditka ayuu ka bataa waxaana uu ka yaraadaa dhibitka waa xog muhiim ah xogtaas mar walba aad xareysanayso oo u baahanaysaa income markay ku soo xaroonayso wuxuu ka bataa creditka waxaana uu ka yaraadaa maxaa loo yaqaanaa dhibitka akoon waxa jira expense la yiraahdo soo sheegnay in kharashaad wax allaale wixii kharash oo baxa oo galaan wuxuu ka bataa akoonkaas qaybta debitka oo wuxuu la sharci yahay kii u horeeyay ee asadka waxaana ka yaraadaa degreeska okay way faantaa maleynaya shanta akoonka u horeeya iyo akoonka u dambeeya oo ah asad iyo expense kala ma aha saddexda dhexe waa isku sharci kan u horeeya kan u dambeeyana waa isku sharci bookkeepingka waxa u muhiimsan uga baahanahay waa intaas waa inaad kala taqaanid mar walba casharkan ku soo celcesho kadib akoonada qoro si uu buugga ku caawiyo mar walba aad noqotid qof advanced ah oo ka warhayo wax uu ku shaqeynayo okay ila soco waxaan rabaa hadda inaan soo furo barnaamijkeeni kuwii buugga shirkadeena Al-Fathi ee aan wiilka hore abuurnay shirkadii waa tan kan ay talaa dul taagnaa waan soo furaya way soo furmatay waatan inta aan barnaamijka u gudbin oo deyntii macaamiisha iga maqnay aan diiwaan gashan marka hore balan soo ogaaday reportkaygii xaaladda balance sheet-kaygii meeshuu marayo lacag waxaan haystay dhaqdhaqaaqay meeshuu marayay report ayaan tagayaa company financial ayaan ka sii tagayaa waa la leexanayaa kadib balance sheet standard ayaan tagayaa ii soo furaya balance sheet standard $850 oo lacag ayaa waxay alaab ahaan ugu taala inventory asset inventory waxaan naqaanaa alaabta notal oo inventory-ga alaabta waxaan soo sheegnay inay tahay bakhaar ku taal $850 ayaan haysanaa haddii aan rabno inaan ogaano waan sii click gareynaa laba jeer ayada opening balance equity-ga lacag ayaa noogu jirta lacagtaas oo bur xumaan $400 noogu fadhiya sonkor sidoo kale iyaduna casaan ah $450 noogu fadhiya total lacagta hantidaada $850 marka company $850 waxa ahayn ma haysto $850 ayuu ku shaqeynayaa halkan waxa ii taal opening balance waa hantiyaal magacooda wali aan la sheegay $850 weeye total equity-ga waa $850 marka $850 iyo $850 isleegiin bal dhaqdhaqaaqa dhaca u fiirso haddii aan hadda alaabta macaamiishana soo xareysano home dib iigu celi company ii soo fur kadib waxa ii dooran waxaan tagayaa my general journal entry ayaan dooranayaa waxaan lacagta akoonka ay rabtay aan lacagtan aan xareynayno alaabta lacagtan maqan yaa iska leh lacagtan yaa iska leh horta hantiyaasha lama sheegin opening balance equity ayaan dhahayna oo hantiyaasha lama sheegin meesha ay galayaan lacagta opening balance equity maadaama uu yahay meesha uu ka siyaadayo waan soo sheegnay debitka iyo creditka balkan fakar xagee weey intaan aanu ku sheegay okay wuxuu ka siyaadayaa creditka tusaale $500 ayaa wax iga maqan tahay macmiil lacagtaas ayada $500 xagee galaysaa
waxay galaysaa account la yiraahdo account receivable adiga ayaa qoraya marka tusaale ahaan account receivable in hore ka soo tuuro ayaan ogeyn laakiin hadda ma soo tuurayo account receivable ayaan qoraynaa ama deymaha maqan adiga waxa doonto ku qoro laakiin aniga account receivable ayaan ku qoranayaa waa deynta iga maqan markaas oo la heli karo taabka ayaan taabanayaa hadii uusan aqoon wuxuu leeyahay hadda ayaan baranayaa bar ayuu leeyahay taabka ii taaban leeyahay hadda account-ka ayuu rabaa inaan baro account-ka ma income ba ma expense ba oo lacag ah kharash miyaa mise waa income lacag dakhli oo soo gasha ma fixed asset ba ma hanti ma guurtaa ba ma banki ba ma khasnad lacag la dhigtaa ma loan ba ma deyn ka maqan ba ma credit ba iyadoo ma deymaha kaarka lagu bixiyaa ma equity intaba maahan waxa weeye account receivable halkan ay ku jira halkan ay farta galinaya halkan ay kala soo baxaya account receivable waa aniga soo doortay okay aan dhahayaa wuxuu leeyahay ma faafayn dheeraad ku soo darasa mar raba inaan ku soo adkeeyo safe and close ayaan leeyahay xir intaas ayaan rabaa lacagtan hadaba yaa la maqan halkan name-ka ay ku qoran tahay oo ku aadan account receivable halka ku aadin kore fadlan halka ku aadi account receivable lacagtaas waxa la maqan la yiraahdo Salman Salman gaalkacyo ayaan leenahay nin Salman gaalkacyo la yiraahdo oo teamka asxaabta aan kamid ah ayaa lacagtaas iga qaatay tusaalahan waad xareysanaysaa safe and close ayaan dhahayaa hadii aad rabtid qof kale xareysanay safe and new marka aan safe and close ayaan dhahayaa u fiirso marka waxa muhiim in aan isla ogaano meeshii ay galeysay lacagtan $500 meeshii ay galeysay meeshii saameysay wixii ku soo kordhay lacagtii $850 ah halka waxa ku qoran transaction entry 1 waa transaction waa dhaqdhaqaaqi u horeeyay aan sameeyno oo lacag naga maqana customer ku maqana intaana safe and close oran lacagtan waxay saameynaysaa laba account meeshii current asset ahayd maxaa la yiraahdaa current asset waxa soo galaya account receivable account la yiraahdo oo $500 lacag ay ku jirto oo deymaha macaamiisha ku maqana opening balance equity-ga $850 ahaa lacag ayaa ku siyaadaysa oo $500 ayaa ku siyaadaysa markaas kadib wuxuu noqonayaa $1350 ayuu noqonayaa labada account ayaa saameynaysa account receivable-kaygu waa badanayaa account la yiraahdo account receivable meesha uu ku soo siyaadaya total asset-kaygu wuxuu noqonayaa $1350 hadii aan khaldanayn total liability and equity sidoo kale intaas ayuu noqonayaa bal fiiriyo marka isbeddelka dhaca waxa lagu yiri macaamilkan aad soo sameysay ma founder ba ma customer ba ma employee ba ma other ba muxuu yahay waan garanayaa inaad fahmaysaan oo customer uu yahay okay hadda ayaan tagayaa report ayaan tagayaa company and financial ayaan ka sii tagayaa waxaan ka sii tagayaa balance sheet standard iga ayaan leeyahay $1350 ma jeeda $500 ayaa meesha ku soo siyaaday waa account receivable waa deymaha la heli karo oo ka maqan oo bakhaar ka maqan $850 oo inventory waan haysanaa total asset ku $1350 total asset waa intaas soo balance ah equity-ga hadda aan haysto daawado waxa weeye $1350 oo hadii aan farta galiyo check siiyo wii kala sheegaya waxa ay tahay $1350 $400 kamid waa bur cumaan ah sokor $450 casaan sokor casaan ayaa jira $450 $500 account receivable deyn iga maqanaya jirta total deyn lacagta shirkadu ku shaqeynayso $1350 hagaag mar labaad ayaan kugu celinayaa ila soco waxaan rabaa inaan soo xareeyo deyn kale $1350 ayaan soo xareeyo waxaan inaan deyn qof naga maqan $50 kaliya soo xareeyo si halkan uu noqdo $1450 tagaya make general journal entry ayaan ka sii tagayaa kadib halkan waxa igu qoran lacag $50 isla halkan debitkeedana $50 oo kale ayadana waay lacagtaas ay iga qaatay waxa iga qaatay Faadumo Sulaiman Sulaiman Yusuf wala ilaa iga qaadatay lacagtaas marka aan taabto ama meelahaas oo kale ku dhufto wuxuu ilaahay ma aqaan oo ku barnaamijkan qof walba uu aqoon uu ku sheegay ma aqaan ayuu ilaahay maxay taa qoftan waa customer ayaan leeyahay iska bar hadda iska bar safe ayaan close ayaan leeyahay ila soo account receivable-kaygii $500 buu ahaa
halkan wuu ka siyaadi account receivable waxa weyn inuu debitka ka siyaado $50 ayaa ku siyaaday wuxuu noqonayaa $550 equity-giina may equity maxaa la opening balance equity account-kii ahana sidoo kale $50 ayaa ku siyaaday $1350 ayuu ahaa wuxuu noqonayaa $1400 safe aan kala soo yaan leeyahay antago company financial antago report antago kadib aan kasii tago company financial balance sheet standard antago halkan ka socda account receivable-kii wuxuu ahaa $500 $50 ayaa ku darsantay wasaanta ku soo sheegay wuxuu kala saameeyay account maxaa la yiraahdaa inventory-giga ma saameyn waayo $850 alaab ayaan haystaa waxa ii tal wali alaab inventory ma saameyn akan $400 weeye equity opening balance equity wuxuu ahaa $1350 oo maqan ayaa ku siyaaday wuxuu noqday $1400 hadii aad u baahantay inaad ogaatid waatan $1400 kili-kiliksi burcumaan oo inventory ah shirkadu lacagtay ku furan tahay burcumaan $400 ayaa jira sokor casaan ayaa jira $450 lacag diin account receivable ayaa jirta oo $500 ayaa ku maqan tahay daarto inaad isla $500 ayaad click siinaysaa waxay ku maqan tahay ninka la yiraahdo waxay ku maqan tahay Salman Gaalkacyo ay ku maqan tahay lacagtaas sidoo kale account receivable ayaa jira $50 ayadana oo ku maqan maxaa la yiraahdaa hadeer macmiilkii aan xariirinay Faadimo Cismaan Yuusuf casharkii maanta intaas ayuu noogu ekaa kaliya waxaan maanta dhiganay sida macaamiisha deynta ka maqan aad deynta kaga maqan aad diiwaan gashan lahayd muhiimsanaa meeshan ku qaadana wuxuu ahaa bookkeeping-kii daawadaysan ka marnaba ka hoos bixin bookkeeping-ka sida loo bookkeeping gareeyo oo ciwaanada credit iyo debitka loo sameeyo waxaan sida caadada ahayd anagu diyaar u nahay inaan mar walba idin faa'iideyno wax walba oo aan idinku dhaano waxaan idinkaga tagayaa hal su'aal oo ah su'aasha toddobaadkii hore laga soo jawaabay waxa ka soo jawaabay 3 qof Faadimo Macalin Cismaan gabar magaceeda nagu sheegtay Kharalaas iyo magaalada degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal joogta way soo sheegtay qaabka kamid loo abuuray si faahfaahsan waliba ma sha Allah nin Ismaaciil Maxamed Xasan la yiraahdo oo jooga ceelasha biyaha gaar ahaan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ee dalkeena Soomaaliya waa uu soo sheegay sida kamid loo abuurto ka soo jawaabay arday badan ayaa ka soo jawaabtay oo halkan aan ku soo koobi karin aad ay maasan okay laba su'aalood ayaan weydiinayaa labada su'aalood waxay yihiin waxaan rabaa in alaabta dukaanka itaal aan diiwaan gashado qaab fudud oo alaabta dukaanka taal aan u diiwaan gashan karo ayaan ka rabaa waxaan kaloo kaaga baahanahay barnaamijkan QuickBook marka aan ka shaqaysiinayo qaabka aan u soo kiranayo waa laba su'aalood oo fudud waxaan rabaa inaad ii sheegtid qaabka aan u diiwaan gashanayo alaabta dukaanka itaal oo intaan list gareys alaabteeda aan u diiwaan gashanayo waxaan kaloo ka rabaa barnaamijkan QuickBook qaabka marka hore loo soo furo ee loo soo kiciyo company-ga ayaan ka rabaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad waxaan filayaa inaad garan doontaan dhamaantiin aad baan idin salaam